magac baa ka raadinaysaa war ilaaha dartiisa uma hadlaayo aniga war anigan ka hadlayso ilaahay hadalkiisa maaha soo kalaamu rabbil caalamiin maaha miyuusan ahayn sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan ka raadinayaa anigu waxaan ka raadinayaa ridda allah ilaahay raalaakiisan ka raadinaya alxamdulillahi xamdan xamda والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، أو كما قال عز وجل. إلهي يا mahad iskale allihii naga dhigay dad muslimaan oo ogolaaday maanta inaan halkan ka soo dhex muuqana allahaas ayaa mahadi oo dhan u sugnaatay. sidaa darteeda ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu dhahayaa kuwa iimaanka laga helayo, kuwa allah ee rasuulka rumeeyo, war toobad keena. tuubuu ila allaahi, ilaahay u toobad keena, toobad weydiista, dembi dhaaf weydiista. maxaa yeelay anigana Muxamed ahay maalinkii intaasoo jeer baa ilaahay dembi dhaaf weydiistaa. adigu nabiyullaahi Muxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo macsuuma la dhowray oo waxa weeyaan xumaan laga dhowray uu ilaahay subxaanahu wa tacaala u dhahay: yaa ayuha rasuulu balligh maa unzila ilayka min rabbik wain lam tafcal famaa ballagta risaalatahu wallaahu yacsimuka min annaas. ilaahay dhahayba intaasoo jeer buu ilaahay dembi dhaaf weydiisanayaa oo uu isaga ka hadlaayo udgoonow xabiibkayniye, bal adinkuna dembi dhaaf weydiista oo ilaahayna u toobad keena. ujeeddadayadaa waxay tahay waxyaabaha lagu hadlaayo aan sal i raad lahayn, qof bani aadama caadi la iskaga maagayo, bareer loo aadayo, si gardara wax loogu sheegayo, si aan sax ahayn loo beegsanayo, si aan ilaahay rasuulkiisaba raali ka ahayn loogu tuhumayo, wax loogu tilmaamayo ayaa rabaa. arrinteeda biidhigeega waa halkaa. waxa weeyaan dad badan oo muslimiinta ka mid ah ayuu in badan ducaad iska beegsata, waxayna ku beegsadaan waxyaabo aysan ogeyn, waxyaabo aysan iyagu markaa inay ka hadlaan aysan munaasabad ay ku ahayn, waxyaabo markaa oo iyagu aysan mudnayn inay ku hadlaan la rabay culimmada inay ka hadasho, la rabay cuqaash inay ku hadasho bay ku hadlaan, hordhac bay ka yihiinbo. wixiina haba hadlaane sida sharciga islaamka uu qabo raali uu ka yahay uma hadlaan. waxay u hadlaan si uusan sharciga ilaahay iyo rasuulkiisa baysan raali ka ahayn. in yaray ka hadlaan, way kordhiyaan, way saa'idiyaan, waxbay ku darsadaan oo way biiriyaan. ilaahayna intaa raali kama ahan, rasuulkiisana raali kama ahan, muslimiinta oo dhanna raali kama ahan. wax ilaahay iyo rasuulkiisa uu raali ka ahayn qofka samaynayan hadama garanayo. anigu wuxuu sameyn rabo maalinta qiyaamo, wuxuu ku hadli rabo, halkuu u socdo, halkuu is leeyahay halkaa bal waxbay kuu noqonaysaa ma hel. aniga nabiyullaahi Muxamed oo ilaahay dhowrayna waa arrinkaa uu ku hadlayaba. arrinkaa baan samaynaynaa, lagu hadlayaa dhibka. waxa weeyaan maanta qofki inuu ku dilo keliya maaho, qofki inuu ku dhibaateeyo keliya maaha, qofki inuu wax kugu sameeyo keliya maaha. qofka carabkaaga ku dhibaateyn kartaa, ku dili kartaa, ku sidcin kartaa, kuna rafaadin kartaa. sidaa darteeda marka kufsharaka can innaas buu yidhi calayhi afdalu salaati wasalaam, war carabka iyaga ka reebo ummadda ka reebo carabka. haddaadan waxba u qaban karin, aadan wax tari karin, aadan wax u biiri karin, aadan waxa weeyaan waxba u samey karin, carabkaaga ka dhoor muslimiinta buu leeyahay nabiyullaahi Muxamed calayhi salaatu wasalaam. marka muslimku maxaa laga rabaa? muslimka inuu dhoorsanaado, muslimka inuu ilaalsanaado, muslimka inuu muslimka kale u nabadgeliyo. muslimku waa in badbaadiyo, amni, iimaan laga hela, ilaahay ba laga helaayo. qofkan inaadan dhibin, shartaada waa inaad ka haysataa. maxaa yeelay qofkan inaad dhibtidoo dulmisidoo silcasidoo rafaadisid maaha. waxaa lagaa rabaa qofka xumaanta adigay kugu jirto ummadda islaamka inaad ka badbaadisid.
sidaa daraaddeed waxaa lagu carab taagayaa qof yacni diinta ahal u ah u adeegayo u khidmeynayo u shaqaynayo shaqaale diimeed ah baa lagu aftaagayaa baa lagu qaylinayaa baa lacnaananaya baa xumaan lagu sheegayaa wuxuu isagu ku hadlo nasteexa ahaan u hadlana waa la durayaa warsaanaad tahay fiyuus baa ka raadsanaysaa magac baa ka raadinaysaa war ilaaha dartiisa uma hadlaayo aniga war arrinkan ka hadlayso ilaahay hadalkiisa ma aha soo kalaamu rabbil caalamiin ma aha miyuusan ahayn sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam waa maxay waxaan ka raadinayaa anigu waxaan ka raadinayaa rida allah ilaahay ralaashiisan ka raadinayaa adiguna arrinka inaad ka waantowdid baa ilaahay kaaga raadinayaa oo xaggiisa maxaa wax kale aan ka raadinayo waa may marka maxaa loo baahan yahay culimadii in afka lagu suro ma aha in afka lagu taaga ma aha in hadalladoodii la jarjaro qaybta ficneeda la jaro qaybta yacni waxa weeyaan qofka taageer ay ku noqotay soo qaatana ma aha war hadalka waa la bartaa waa la dhegaystaa aayaddaa la dhegaystaa xadiidkaa la dhegaystaa aqwaasha culimmadaa la dhegaystaa intay ku socdaan xaggayse u socdaan maxayse u socdaan ulijeeddada iyadu maxay tahay waa la isweydiiyaa waxa weeyaan haddaa faham weyso qof baa lala wadaagaa qof adi kaa caqli badan baa jiro kaa cilmi badan oo fowqa kulli dii cilmin caliim qofba ka cilmi badan keligaaga marka adig inaad dhex dawaalatid waxyaabadan aqoon u lahayn qalad bay kugu tahay yaa muslim ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu dhaha walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm war hadhex gelin hadhex dawaashan waxaadan cilmi aqoontoonadan u lahayn sawabaad u dhexgeli sawabaad culimmadu u ambaarayni sawabaad culimmadaad wax ugu sheegi sawabaad culimmada aad u daw taagan tahay maxaa ku duldhigay maxaad ugu socotaa maxaad ugu taraaraxaysaa awooddaas halkaa ka keentay alculamaa warathatlambiyaa weeyaane culimmadu warathatlambiyaa weeyaane ayay xariir la leedahay dhaxalkii nebiga weeyaane dadkan ay ku xariirsan yihiin waa silsilad diintaas dhibkii silacay rafaadkii nebiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam loo soo marisiiyey bay hee iyaguna waxa weeyaan ay kugu gaarsiinayaan diintaasay waxa weeyaan ay kugu hogaaminayaan diintaasaa mar weliba horseed ay kaaga yihiin saad adigu u cambaarayni ii sheegbo su-aashaas igaaga jawaabi karo jawaabteeda ayaa isiinaya jawaab ugu baahanaheen yaa muslim dhalinyaro ilaahay ka cabsaday taqullah ilaahay ka yaaba oo ilaahay ka baqa oo xumaanta fisqiga fuxushada zinada dhibkan muslimka la dhibaayo lagu xadgudbaayaba ilaahay aan uga cabsano aqulu qawli hada wastaghfirullah